Assalaamu calaykum duhur wanaagsan daawadayaasheena ciyaaraha maanta kusoo dhawaada barnaamijkeennii xaqiiqada xidigaha kaa qarsoon ee toddobaadlaha ahaa qaybtiisii labaad boqolkii ciyaaryahan ee bilowgoodii nolosha hal koox u soo wada ciyaaray ama soo wada matelay hal maaliyad laakiin maanta uu kala dheela kooxa isku cadow ah ama kalasika isku ah sida derby iyo wixii la mid ah daawade intaanan barnaamijkeena bilaabin waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu dhiirigelisaan subscribe-ta like-ta iyo share-ta si uu saaxiibo badan usii gaadho inaad barnaamijka like saartaan aan ku bilaabo 10 ciyaartoy ee maanta waxaa ugu horeeya aan ku bilaabayaa Harry Maguire difaaca kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska ahna difaaca ugu qaalisan dunida maanta iyo Andrea Robertson dambeedka midig dambeedka bidix ee kooxda Liverpool kuwaas oo sanadii 2015 soo wada metelay una soo wada ciyaaray kooxda Hull City ee dib uga dhacday Premier League Ingiriiska labadan saaxiib ee soo wada metelay kooxda Hull City maanta waxay u kala ciyaaraan kooxaha Manchester United iyo kooxda Liverpool kuwaas oo ah cadowga ugu weyn kuwaas oo isku ah cadowga ugu weyn ee kubadda cagta Ingiriiska ama aan idhaahdo kalasikada ugu weyn ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska Andrea Robertson iyo Harry Maguire waxay iskaga hor yimaadeen waqtiyo badan garoomada kubadda cagta ee Manchester United masraxa axlaamka Old Trafford iyo Merseyside-ka garoonkeeda ee Anfield Stadium labada xidig ee ku xiga waa Cristiano Ronaldo iyo Gerard Piqué waxay soo wada meteleen una soo wada ciyaareen sanadii 2004 ilaa iyo 2008 oo Cristiano Ronaldo ka tagay garoonka Manchester United waxay u soo wada ciyaareen kooxda Manchester United halkaas ay waqti fiican ku soo wada qaateen haddaba Cristiano Ronaldo waxa uu hayaamay kooxda Real Madrid halka Gerard Piqué uu qabtay kooxda Barcelona iyo Real Madrid waa kalasikada adduunka ugu weyn ee kubadda cagta Barcelona iyo Real Madrid ayay kala ciyaareen labadan xidig waqti fiican ay ku wada qaateen iyagoo ku tartamay horyaalka La Liga sida Champions-ka iyo Copa del Rey-ga waqtiyo badanna labadii saaxiib waxay iskaga hor yimaadeen kalasikada adduunka ugu weyn aan soo qaadana labada xidig ee ku xiga waa xidigaha khadka dhexe ee xulka Jarmalka iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos iyo Arturo Vidal iyagoo sanadii 2009 u soo wada ciyaaray soona wada metelay maaliyadda kooxda reer Jarmal ee Bayer Leverkusen laakiin Toni Kroos wuxuu guuray ama uu hayaamay kooxda Bayern Munich halka Toni Kroosna uu Arturo Vidal u ciyaaray kooxda Juventus laakiin aakhirkii labaduba waxay yimaadeen horyaalka La Liga Spain halka Toni Kroos uu ciyaaray kooxda Malaki ee Real Madrid Arturo Vidal waxa uu ciyaaray naadiga Barcelona halkaas ay iskaga hor yimaadeen kalasikada dunida ugu weyn labadii saaxiib ee kooxda Bayer Leverkusen waa Toni Kroos iyo Arturo Vidal Isco iyo Jordan Alba waxay u soo wada ciyaareen soona wada meteleen kooxda Valencia sanadii 2010 sanadahaas ay waqti fiican iyo nolol wanaagsan oo kubadda cagta ah iyo jawi wanaagsan ay ku soo wada qaateen kooxda reer Isbaaniya iyo Valencia laakiin labaduba waxay u kala hayaameen kooxda Barcelona iyo Real Madrid iyaga oo labadii saaxiib halka iyaguna mar labaad sidii ciyaaryahanadii hore iskaga hor yimid kalasikada dunida ugu weyn ee Real Madrid iyo Barcelona welina wada ciyaara labada kooxood Luis Alberto Suarez iyo Vertonghen daafaca Tottenham labaduba waxay soo wada meteleen yaraantoodii ku soo wada koreen una soo wada ciyaareen kooxda reer Holland ee Ajax Amsterdam laakiin Luis Suarez iyo Vertonghen labaduba waxay soo hayaameen Premier League Ingiriiska waxaan iskaga hor yimaadeen ciyaaro waaweyn iyagoo kala metelaya laba kooxood oo kala ah Tottenham Hotspur oo Vertonghen u ciyaaro iyo Alberto Luis Suarez oo kooxda Liverpool soo ciyaaray labadii saaxiib ee kooxda Ajax waxay soo kala safteen laba kooxood oo iyaguna isku ah kuna xafiltama horyaalka Premier League qaybta halkaas aynu ku soo gabagabaynayaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena
xaqiiqda xidigaha kaa qarsoon ama boqolkii ciyaaryahan ee hal koox u soo wada ciyaaray. waa mahadsantihiin daawadayaasheena ciyaaraha maanta.